kusoo dhawow channelkayga waxaan ahay Ibrahim Adam haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad isoo booqato fadlan waxaan ka codsanayaa in aad kanaalka ku soo birto oo aad subscribe noo saarto maadaama shirkadda YouTube ay bedeshay barnaamijkii ahaa in subscribe la qarsado ayaa waxaan go'aansaday bal in aan isla aragno 10 YouTuber ee Soomaalida ugu sareyso ama 10 kanaal ee Soomaalida ugu sareysa 29 bishii July ee soo dhaafnay ee sanadkan aan ku jirno ee 2022 ayaa ay shirkadda YouTube banaanka soo dhigtay dhammaan dadkii ay u qarsanaayeen subscribe-ka kanaalada ama journaliska aan ku soo qaadan doono barnaamijkan ama mid ahaan doonaan kanaalada soo gudbiyo barnaamijyada sida heesaha oo kale iyo sidoo kale media sida BBC-da oo kale sababta aan u soo qaadanaynin waxay tahay iyagu waa shirkado ama kaamirada si toos ah uma hor yimaadaan kanaalada heesaha soo baahaya sida Waqal Studio oo kale Cabdi Askari oo kale iyaga kaliya waxa ay soo saaraan heeso laakiin inagu waxaan soo qaadan doonaa 10 YouTuber ee Soomaalida ah ee ugu sareysa ee si toos ah kaamirada u hor yimaada kanaalada sida shakhsiga ah u leh anigu waxaan soo xushay 10 YouTuber ee ugu sareysa waxa macquul ah bini aadam ayaan ahay waxa macquul ah in aan qof ka tago haddii lacala qof aan ka tago ma aan hilmaamo dhanka commentiga qofkaasi nagu la wadaag run ahaantii aad ayaan u baaray waan ka digtoonaaday in aan qof ka tago laakiin bini aadam ayaan ahay qof aan ilowsanaa ama aan aqoonin ayaan meesha ka saari karaa qofka tobnaad waxa uu noqon doonaa kanaalka dadweynaha ama channelka dadweynaha waqti xaadirkan marka aan anigu fiirinayay mariyay 612,000 subscribe kaalinta sagaalaad waxaa ku jira the one and only lady waa Adna Hena ama kanaalka ay ugu qoran tahay Adna Channel waxa uu maraya 649,000 oo subscribe waqti xaadirkan laakiin waxa macquul ah inta aan muuqaalka duubayo in uu noqdo 650,000 oo subscribe kaalinta sideedna waxaa ku jira walaalkeena Umar Insha ama kanaalka ogaansho oo marayo 671,000 oo subscribe inta aan muuqaalka duubaynana waxa uu noqon karaa 672,000 oo subscribe kaalinta toddobaadna waxaa ku jira YouTuberka kaliya oo haddii uu sii wadi lahaa dadaalkiisa kaalmaha koowaad soo geli lahaa Liicato Official ama Liibaan Aadan Cali waxa uu maraya 674,000 oo subscribe kaalinta lixaadna waxaa ku jira qiyaas ay kula tahay the one and only ninka kaliya ciyaaraha looga haray Maxamed Qadar ayaa waxa uu ku jira kaalinta lixaad waxa uu haystaa 713,000 oo subscribe waxaanu soo gaarnay 5 qof ee ugu sareysa fadlan waxaan idinka codsanayaa in aad kanaalka subscribe saarto haddii aadan weli saarin waa mahadsan tahay qofka kaalinta shanaad ku jira waa Mahir walaal Mahir ama aad u taqaanaan ogaalka dunida waxa uu haystaa 732,000 oo subscribe kaalinta afraad ee ku jira qiyaas ay kula tahay the one and only arimaheena waqtigan aan muuqaalka duubayno waxa uu marayaa 836,000 oo subscribe muuqaalka kadibna waxa laga yaabaa in uu galo 837,000 oo subscribe kaalinta saddexaadna waxa ku jira Dirsile Cabdi oo isagana maraya 940,000 oo subscribe inta aan muuqaalka duubaynana waxa macquul ah inuu soo gaaro 941,000 oo subscribe kaalinta labaadna waxa ku jiro sida wada ogtihiinba the one and only best YouTuber best Somali YouTuber Asad Hajiyo labada maalin ee soo dhaafnay soo galay 1 milyan waxa uu haystaa 1,200,000 oo subscribe qofka ugu dambeeya ahna shakhsiga kaalinta koowaad ku jira waa the one and only King CK ahna YouTuberada shakhsiyaadka ah ee Soomaalida ugu horeysa waxa uu haystaa 1,700,000 oo subscribe wankaas ayay noqdeen 10 YouTuber ee ugu sareysa Soomaalida sida saxda ah kaamirada u hor yimaada barnaamijkeena kumaanan darin kanaalada soo baahiya heesaha sida Waqal Studio Cabdi Askari sidoo kale kuwa media sida BBC-da oo kale waan ka saarnay sababtoo ah iyagu shakhsiyaad ma ahan mawduuceena waxa uu ku saabsanaa dadka shakhsiyaadka ah ee sida gaarka u leh kanaalada waxaanan hilmaamin sidoo kale waxaa jira wiil Soomaali ah kiinsa kanaalkiisa ku soo baahiya af Carabi 3 milyan oo subscribe ayuu galayaa waana Nakhlaan kanaalkiisana waxa la yiraahdaa mush macquul waa soo fiirin kartaa 3 milyan ayaa waxa uga dhineed markii ugu dambeysay 6,000 meelahaas ayaa uga dhineed anagana kanaalkeena waxaan kaalinta koowaad ugu jirnaa dadka ayagana bilowga ah fadlan waxaan ka codsanayaa in aad na support gareyso oo aad kanaalka ku soo biirto subscribe aad saarto muuqaalka aad la gareyso asxaabtaadana aad la wadaagto si ayagana noogu soo biiraan waxaan jeclaystay in aan intaas idin la wadaago waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka waxaan ku leeyahay ku raaxayso noloshaada peace waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo